su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa wasiirka wasiir xeerkii golaha la hor keenay iyo kalfadhigii hore oo la celiyay dhammaantii waan akhriyay waxaan ka waayay hal qodob oo ii ogolaanaya inaan dadka caayo adiga oo wasiirkiiya ugu sarreeya wasaaradda waxaad caadaysatay inaad dadka caydid waxa ugu horeeyay hadda ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku tiri waa marxuum waa farq oo xitaa haybtiisa ashaki gelisay waxa jiray mid ku xigtay oo mudug dadka degan oo tiri oo iyagoo musqulaha ka soo bixi waayay ba madaxweyne dani Allah uu keenay markaas maxaan ku dhahay banaanka u soo baxeen madaxweyne kasta oo wadanka yimaada isaga xaq loogu leeyahay inuu dadka ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa sugo si xor ah sida ugu shaqeystaan waxa jirtay gabdho reer nugaaleeda oo qofku aragtidiisa wuxuu ku cabiri karaa sida xeerku uu qabo qodobka 12aad wuxuu ku cabiri karaa qoraal wuxuu ku cabiri karaa hadal wuxuu ku cabiri karaa suugaan hadday ka hor imaanayn anshaxa iyo diinta suuban waxa ku tiri waa gabdho maxaan ku dhahaa buurbuurtayo aan baahiye ka muuqanayn ba maxaan ku dhahaa hadlayay waxa ii sheegtaa xeerka saxaafadda iyo dagsuurka Puntland qodobka kugu ogolaanaya inaad dadka aflagaadaysid dadka caydid qodobkaas oo waafaqsan sharciyan dagsuurka Puntland u yaala baan ka rabaa su-aasha labaad oo kale waxa weeye waxay ku socotaa agaasimaha TV-ga shaqaaluhu dawladda xuquuq buu leeyahay wuxuu ka shaqeeyana waa xafiisyo dawladdu leedahay ma aha xafiisyo bareefdo dad shacab ay leeyihiin wasiirku wuxuu ruqsayaa hadda gabar ugu dhameysay gabadhaas wuxuu u diray qoraal WhatsApp uga diray waa haynaa aanu waa ruqsaysan tahay saacada laga bilaabo saasa shaqada kaaga dhamaatay waxa jira hadda xildhibaan daadir wuxuu soo qaatay xeerkii madaxweynuhu qoray qof lama ruqsayn karo shaqada laga cayrin karo qof lagu bedeli karo marka qofku wuxuu xaq u leeyahay xitaa digniin la siiyo mar labaad digniin la siiyo mar saddexaad ruqso loo soo qoro xeerka aad u adeegsatay oo aad ku ruqsaysay gabadhaas iyo kuwa la midka iyadana waa ka rabnaa nama qancinayso af Soomaali iyo af miishaarnimo meesha aad ku nugu qancin karaan waxaan weydiin lahaa wasiirka sida uu sheegay wadankeenu wuxuu leeyahay dhul fara badan waana qayb ahaan saddex meelood in ku dhow dhulkii Soomaaliya la oran jiray marka waxaan dhihi lahaa xagga dalxiiska waxa jira dalxiisku waa laba qaybood oo qayb waa dad dibadda ka yimaado oo dalka soo dalxiisa qaybina waa gudaha marka iyadoo loo dhiirigelinayo dalxiiska wasaaraddu ma la timi inay iskoolaadka marka la fasaxo oo kale ardayda iskoolaadka inay gobolada kale dalka xeebaha meelaha dalxiiska ku fiican hal baabuur oo bas wasaaraddu leedahay in lagu qaado kharashaadkana ay iska bixiyaan waalidiintu taasi waxay saacidi lahayd wax fara badan oo dhalinyaradu inay dalkooda bartaan inay dadkooda bartaan inay wadankooda jeclaadaan marka dalxiiska gudaha in la bilaabo kuwa dibadda oo ku xirmi lahaayeen arinta wasaaraddu ma ku fikirtay qorshe sama ka leedahay arinta labaad waa hadallada xoogaa wasiirka oo xoogaa marka uu jawaabayo qaybaha kale ama Puntland ha noqoto daafaheeda kala duwan ama ha noqoto hadii la yiraahdo gobolada kale oo ehelku dago ama madaxda kale oo Soomaaliyeed oo matalan ba u baahan in loo jawaabo runtii dadku qaybina waxay qabaan inaad tahay geesi loo baahan yahay oo si fiican ugu jawaaba laakiin anigu waxaan qabaa hubka aad isticmaalayso qaybtiis inaan lagu ridin oo meelaha qaarkood hoos loo dhigo ayadoo la fiirinayo Soomaalinimada iyadoo la fiirinayo tolnimada iyadoo la fiirinayo wax walba la yahay in xoogaa aad ka dhinto ayaan wasiir jeclaan lahaa marka suuragal ma tahay in arinta adigana lagaaga tiro oo rakaaga hooseeyo wasaaradda oo hawlahaas oo kale matalan ba ama wariyaal ha noqdo ama magaranaysa meel kale ha noqdo in loo sameeyo siyaasad wasaaraddu la timaado oo meelaha qaarkood dad kaaga hooseeyo oo waxyaalaha qaybtood ka jawaaba la helo hay ma labadaas ku soo koobaya waa mahadsantahay wasiir salaamu calaykum waraxmatullah aniga labo aan qabaa mid waxa wasiirka u jeedinayaa aniga wasaaradda wasiir baan ka soo aan jiray waxaan ogahay wasiir Caydiid inuu hadda waxaan u arkaa aniga inuu yahay shaqadan waxay tahay shaqo sax ah inay tahay
inuu yahay wasiirka ugu fiicnaayo wasaaradda Soomaaliya ayaan aaminsanahay marka taa waa ku dhiirigelinaya waan ku mahadcelinayaa qodobka labaad wuxuu yahay agaasime kiimiko ku socotaa agaasime kiimiko xaq uma lihid shaqaale rasmi ah oo kaarka shaqada haysta inaad shaqo ka cayriso iyadoo aan la marin code of conduct iyadoo aan la marin guddiga anshaxa shaqadii shaqaalaha markii qofku aan helin abiil isku difaaco aan helin guddiga anshaxu wuxuu gudbin karaa laakiin intaasoo step bay mari kartaa mushaarna kama goyn kartid mana ruqsayn kartid sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa dhammaan xildhibaanada halka ku jira iyo isagaba agaasime arrintaas waa inaad adoo fadhiya shirka adoo fadhiya waa inaad ka laabataa xaq uma lihid haddii arrintaas ay dhacdo adoo go'aanka gabadhaas mataqaanaa shaqada ka kacaysa ka laabatid waa sharci darro sharci jabin waxaan soo jeedinayaa guddoonka ila fadhiyaba in arrinta tallaabo laga qaado mudane wasiir adigana waxaan kugu dhiirigelinayaa sharciga inaad ilaalisid wixii sharciga ka baxsan halkan waa goli xeerdejinta haddii aan lagu difaacin shacabka haddii aan lagu difaacin dadka mataqaan rayidka ah warqadii madaxweynaha baal marsan tahay sharciga baal marsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan ibraahim casayr wuxuu weydiiyey su-aasha xeerarka golaha loo soo gudbiyey oo wasaaradda ka yimi dhammaan ama golaha loo soo gudbiyey waxaan ka waayay xeer kuu banaynaya inaad dadka caydo xildhibaan waxaa kuu sheegaya aanu dadka ma caayo laakiin haddaad qareen u tahay ra'iisul wasaaraha dalka waxaad ka keentaa saddexdii boqol uu ku dilay qof uu raas kambooni ku dilay waxaad ka keentaa 20 kun uu qaxiyey waxaad ka keentaa Jubbaland dhammaanteed bandowgii uu ku soo rogay dhibaatadii ka gaadhay kuwii isku dhintay umulaha ahaa intaasaan ku oran lahaa su'aasha labaad xildhibaan maxamed salaad arrinta dalxiiska ma ku dhiirigeliseen dhalinyarada ama iskuuleyda marka loo xidho maartay dalxiiska gudaha inaad maartay dalxiis geysaan dalxiiska laba qaybood baan uga shaqeynaa saddex qaybood baan uga shaqeynaa inaanu goob u astayno goobtaasi si ay dalxiisayaasha u soo jiidato oo maartay dadka meesha degan shaqo abuur iyo wax kala iibsi iyo hoteelada la seexanayo baabuur la kireysanayo iyo ay dhaqaale uga helaan quruxdeedana la soo bandhigo waxaan uga shaqeynaa kale in la wacyi geliyo oo dadku ku baraarugaan dibadda iyo gudaba dalxiiska waxaan uga shaqeynaa oo kale dalxiisayaasha banaanka bilicda dalka intaanu bandhigno inaanu hagno ruqsad siino geeyno meesha waxaan kale uga shaqeynaa in meesha aanu astaynay sanadka ku qabanayno awoodayadu intii ay noo saamaxdo oo dada inaanu gaxayno anagoo la kaashanayna maartay shirkadaha iyo bangiyada dalka Puntland inay qayb ka noqdaan oo iyaguna ay dadku bartaan shaqooyinka ay haystaan ee ganacsigooda iyaguna ay qayb ka noqdaan intaasaanu maartay awoodayadu ay gaadhaan anagu intaana waa qabanaa waxaan rajaynaynaa oo kale inaanu sanad walba meeshii ka duwan ku qabanno waxaan ku kordhinaa bilic baan ku kordhinaa dhirayn baan ku kordhinaa sidaan warbixinta idinku sheegay oo siiba dhulka xeebaha ah maartay iyadoo magaalo walba lagu dooranayo muhiimadda gaarka ee dalxiiska iyo bilicda iyo taariikhda u leedahay maartay in meel lagu dalxiiskayo taariikh leh meel bilic leh maartay intuba ay isugu jirto baan u dooranaa waan rajaynaynaa insha Allah inay sii horumarto waxyaabaha ka dhashay goobahan u astaynay waxa kamid ahaa ayl markaan ku qabanay waxyaabihii laga faa'iiday waxa kamid ahaa in xeebta la dhireeyo oo qaybtii goobaad la bilaabo qaybtii iyadoo 250 geed lagu beeri lahaa xeebta baabuurkii dhirta siday baa wuxuu ku gadoomay maartay u dhaxaysa beday iyo daawad buu ku gadoomay dhirtii way qasaarowday iyo birihii maartay xayndaabka u ahaa waxaan rajaynaynaa dabaysha xagaagu marka ay go'do intii ka harsanayd in la beeri doono waxa kale oo laga faa'iiday sanadka dalxiiska halka markaan u geynay in sartii daawad oo maartay uu ka muuqday burbur badani inay shirkadihii ka soo qayb galay shirkad ka mid yihiin Somtel ay ballan qaaday inay dayactiri doonto daraasadeedii waa la dhameeyay waxaan rajaynaynaa in dhaqso loo bilaabi doono waana la isku raacay oo maartay annaga iyo haddana wasaaradda nahay injineerada qiimeeyay oo maartay qaybo kala duwan oo civil engineering isugu jiray iyo environment-ka kuwa yaqaanaba ay isugu jireen iyo shirkadii doonaysay qarashka inay bixiso intuba isku raacay in la approve gareeyay si dhaqsan aan rajaynayno in loo bilaabi doono marka waa maartay shaqo aad u tiro ballaaran oo maartay bilicda dalka iyo taariikhdiisa iyo amnigiisa iyo ka turjumaysa maartay meel maartay qofku amnigi naftiisa ku aamini karo inuu ku dalxiiso
waxyaabo badan bay leedahay marka la baahinayo ama wacyigelin gelinayo marka waxaan rajaynaynaa inaanu ka badan intii aanu qaban karaynay iyo ka badan baa xildhibaan inaanu ka qabanay aad baad umahadsantahay waxaan filayaa su-aasha ku xigta oo maaragtay xildhibaan Sheekh Adduunyo waxay ahayd agaasimahay ku socotay agaasimo ku soo dhow su-aashaas marka koowaad waxaan rabaa hal sixidna inaan sameeyo midna inaan u sheego xildhibaanada waa sax warqad madaxweynaha soo baxday marka koowaadna horta sideedaba wax ma ruqseeyo oo waxaan soo gudbiyaa xarunta aan ka shaqeeyo qofkii qaybinkeeda ku xadgudba digniinihiisiina siino aan u gudbiyaa wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aan ku codsannaa qofkaas inuu maray dhammaan xeerarkii iyo digniinihii dhammaan inuu maray baan hubinaa xildhibaanadan waxaan ka codsanayaa hadda gabadha ay aad ugu soo celceliyeen inay nala hubiyaan dhammaan waxaanu haynaa inay jebisay xeerkii shaqadii shaqaalaha habraacii TV-ga iyo xeerka guud ee saxaafadda Puntland waa nala hubin kartaan waxaanu iskaga kacnay ma aha waa qodobka labaad codsi baan gudbisanaa anigu gabadhan aad hadda ka hadlaysaan xarunta TV-ga ayaan ku wargeliyey inaysan ka shaqayn karin aan gudbiyey digniinaheedii iyo guddiga anshaxa maadaama ay amarkayga qaadan weydo oo meeshii ugu dambeysay isla gaarnay waa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sida uu qabo xeerarka shaqada iyo shaqaalaha sida uu qabo maartay xeerka saxaafaddu habraacyadii ay u baahnayd oo dhan gabadha waa la mariyay digniinihii ay u baahnayd oo dhan waa la mariyay oo agaasimaha ka soo baxaysay guddigii anshaxa oo shaqada iyo shaqaalaha oo telefishinka waa la mariyay dhammaantood documentiskaas oo isku duubana wasaaradda waa loo soo gudbiyey wasaaradda shaqada iyo shaqaalahana waa loo gudbiyey ciddii wax dheeraada ka rabta dee xafiiska waa noogu iman kartaa annaga wax sharci oo arrintaas jabinayo kuma jirto ay